waxaad oranaysaa imika hodan cabdiraxmaan iyo mursal basow kuwaa badhaaday ee caruuraha isu dhalay asma iyo furunle warde waxa horta kalsoonidu axmedow aan kuu sheego maya kalsoonidu qofka aad ku qabto imika halkuu joogaa mursal wadankii mise waa la soo kaxay doonaha joogo eeg meeshuu doonaha joogo waa kalsoonida eeg mursal iyo waa dadka ku qasaaray guurka horta xaguu jooga maya yacni wuxuu ku leeyahay eeg laba dumar oo labadaba heesuu guursaday lama soo qaadin isagii iyo qamar iyo maaragtay haddaan maxaa carruurta mashib baa ka dhala hodan cabdiraxmaan labada hablood maya carruurta walaal baahi baa keentay inankani de wallaahi waa ninga kuu soo waday dhegeyso horta may axmed aan caadi u wada hadal leh qof aanan guursanin sidee ba laba carruur ugu dhalaysa horta waxyaabaha qaar in maaragtay aan loo jighayn laga hadlo maaha ana aad ku fahansiinaynaada maya anigu waxaan aaminsanahay qofka ama social mediaha ku jiro ama wuxuu doonaha ahaado kalsoonida labada qof ay isku qabaan ayuunbuu reer ku dhaqan galaa kuna burburaa inaadeer haddii kalsooni la waayo inaadeer reer ma noolaado haddii kalsooni la helana reer baa sheegtay adduunku dhan bad qabsanaysa anu taan aaminsanaha inaadeer taasa dad baa iska aaminsan hebel iyo hebel dan baa isku guurisay wax danoo isku guurisay ma jirto anigu dan baan leeyahay adna dan baan leeyahay laakiin waxa ina dhex yaalla ah shay ah kalsooni haddaana kalsooni kugu qabin sababaan kuu guursadaaba inaadeer ma taalo waayo haddaana ku kalsoonay noloshu way baaba'aysaa way burburaysaa inaadeer qaale marka dan haddii laysku guursanayo inaadeer dunidoo dhan baa inta dan isku guursato kala tegley ma dhamaysa hoos leedhiye ma dhamaysa inaad aduu noloshii caadigaa baad ka hadlaysaaye dadku micnihii istooranayeen dadku micnihii jacaylka ay jacayl kale jilayeen inaad inaguna waxaynu ka hadlaynaa muxuu ahaa micnihii baahida mursal nin gabadh hodan muu guursan hodan manuu damcin hodan manuu jeclaan wuxuu ahaa ma maqashay qofkaa baahidaa kaga faa'iidaysa maanta waxaa laga yaabaa haddii 1500 oo daynaa lagugu leeyo dollar masalan in ay qof damiir iyo shakhsiyad adag mooye in ay micnihii dadka qaar micnihii noloshooda lagu iibsan karo wax lagaga bedelan karo simple wadi fahmi kartaa war dumarka qaar baa laga yaabaa maanta haddii ay lacag waayaan inay jirkoogaba hadday doonaan even way dhici karaan marka ninkani horta dee isagu baasaboor buu guursaday ninkani hodan cabdiraxmaan oo uu nini soo furay oo uu nini qabay habina kuma wahayn kuma niyad samayne just ha ku dhoofiso unbuu inanta u guursaday yaridii bay xataa isticmaaleen maxaa khaldan axmed isku macaamadiga wada sawiran anaaba arkay may soo dhamaysa axmedow daadaa haye ku soo waa tan anigu markay timid anigu marka ay jirir hargeysa waxaan joogay oo aan fadhiyey oo aan ku sugnaa oo aan wax ka cunayey guriga muxuu ahaa khadrasnimo ilaahay gugii markhaatiyadiina way jiraan inantani gurigay ku soo degtay inantan kalena waxay dumar weligiin talaan idin siinaya weligiina ha soo dhawaysanina gabadha haddii ninkaaga ama magacaad ku tuhmayso ama aad lacag ku tuhmayso waa wallaahi haadii baan idin marayaa gabadh haba yaraataa la saaxiib inay gurigaaga timaado inay ninkaaga jaanis u hesho ha ka ogolaan inantaas saaxiib bay la matashay heesaynu qabanaa bay la matashay waxoogaa lacagaabay reerka u keentay walaasheed bay ka dhigatay khadri marnaba kamay dhigan gabadh ninka u dhisaysa idinka ogaade صح haddii ay yaraantii is aqaaneen oo ay jacayl jilayeen oo dad wada socday ahaayeen maxay bay ka soo doontay guriga khadrasinimo miintii albeer ka degta ay xidigaha geeska ay guriga Axmed Wali Furla iskugu yimaadaan ay habeenkii gurigeeda u hurdo tagto maxay u soo dhawaysan weeday asma way ka caqli badan tahay khadrasinimo waa iska dacad dadka qaar baa iska dacado iska qulubiya maxay u soo dhawaysan weeday daayisha miyaan kan kalaba samroon ahayn
kan kala ka lacag badan labadan ka lacag badan mursale axmed weli iyo isage muxuu axmed weli u soo dhaweey waay wuu soo dhaweeyey wuu isku dayey laakiin asmaa ku tiri gurigayga naagtan ma iman karto back off ay dhaafto aniga maxay iga soo doonaysaa samada madowna ha qaban may gartooda waa nagii galnay waxaan ku iri meel fog ay tagtay dadkan iyagoo inaad warsanay waxba ogeyn ay iska leeyiin jacayl baa ka dhaxay markaa jacayl haddii imanka anu haddii qofka aad aqoon isku leedahay oo jacayl isku dhaxayo itis uma baahnid magaaladaad iska tegaysaa telefoonkiisaad qofka soo helaysaa hoteelkaagu kugu imanaya inan yaroo dalawraabaad iska qabsanaysaa meeshaad doontaad tegaysaan laakiin waxaad ii sheegtaa sababta ay guriga ka doontay khadra sinimo xitaa markii hore telefoon kama ahayn any telefoonada gacanta waxa ku wada hayay khadra sinimo habeenkii guriga markay soo gashay saasay weydisay wixii soo galayo wixii ay historyga u tagaysay xitaa deleted hal telefoon baa they have only one telephone just maxaa ku sabay markaa inay gurigan soo degto ilaa 2 bilood bay sidii qorotada ku dhex nooleeday maxaa inay sida qorotada ugu dhex noolaato ay gabadhii dib u cunto sababay waa been waana mu'awaal waanigan dhamaynayna waa been waana mu'awaal wax ka dhaxeeyna may jirin waa been waana mu'awaal inaad qalbi qarashi soo dhow wax ka dhaxeeyna may jirin gabadhani ninkanaanay u timid meesha ay istiri jaaniska ka heshayna waxay ahayd 2 meelood u sawirmay in guriga la isku imanayo axmed weli furle iyo gurigeeda axmed weli furle markuu diidayna gurigeeda waa ku tagtay oo gabadhu hudheel may deganayna ma guriga waxa isugu aan u fadhiistay weliba sheekada waa jiifay waxay ahayd umul bay ahaydoo milmo yaroo markaa waxay haysatay 2 bilood oo ilaahay igooga yaan kuuri inaad oo markaa ay naaseeduna iska qoyan yihiin khadra oo ay iska jilicsan deetana nin macni adigu iskaga jirta muxuu ahaa waqtigan loo yaqaano 40 days period xilliga maaragtay 40 aanay 40 ka bixin ilmaha yar bay qaadaa naaskay siisaa waa hooyo waa iska tabcaan gurigeeda iska gataa waa aad bay u dacatay waxa ay sameyn jirtay marka anagu meesha ka tagnay ka kacno gurigay kula waxaad ugu imanaysaa khadar muxuu ahaa mursal iyo khadra sinimo iska fadhi يعني halka laga soo galay halkaas yahay marka ku socon kaaga baxayna arbus lady horta inaadeer waxaanad gabadha ninkii waa dambigii ka soo dudo waxaad gabadhi baad eeda saarto waxaad gabadhi baa soo xareysatay qofku hawuu ku soo martay gabadhna ma ahayn idagayso maya qofku ku soo martay karaa guriga waad keeni kartaa unless aad ninkaaga kalsooni ka haysato laakiin aan waxa kuu sheegayaa raggan kalsooni baa qofkan ay kalsoonida ay ku qabtay islahayd waa ninkaaga waa shakhsiyad fiican oo ma ay tuhun la'aan bay u keensatay laakiin haddii ay og tahay in ninkeedu uu stubid yahay guriga horta may keensateen ma fahantay talabaade kale jaaniska 2 qof oo guri wada jooga 3 qof oo guri wada jooga jaanis isuma heli karaanba aan horta kuu sheegay meelaha haddaan lagu ballamayn oon la tegaynin inaadeer gurigan waxba laguma dhex samayn karo waayo carruur yaryar baa guriga joogta marti baa imanaysa dad baa imanaya waa dad caana ma aha dad يعني 3 qof oo caadi guri ugu wada nool waayo dad baa imanaya dad baa ama heesaa wataan ama asxaabtooda ha ahaadaan gurigaas waxaa laga yaabaa 24 hour in 10 minutes uu aanad bilaa dad aanay hayn oo dad inta badan ay dad joogaan sabab ay isugu kaliyeystaanna horta inaad ma jirto hodan iyo inantana calafka isku keenay laakiin iskumay keenin jacayl amaha isku keenay ama iska daayay anigu taa kama warrami karo oo ma dhihi karo dad hortiibeyda is yaqaaneen ma dhihi karo uma dambaabi karo ama ha is yaqaanaan baan iyana is yaqaanin whatever gurigan lagu wada nool yahay uma ka jacayl saaraya inaan chance la isku heli karin 2 qof oo istoonayaana meel kaste chance isugu helayaan meel kaste oon ahayn meesha ay ku nool yihiin waxaad igu tiri umul bay hay inaad dad dumarba ayagoo wada umula oo guryahooda jooga ay haddana guri kalsooni iyo ku nool yihiin farxad laakiin marka horeba haddaad farxad iyo kalsooni haysan oo dadka aad wejiyada aad tus inaad dadka inta badan social media ku jira wejigooda guriga ee runta ah kuma noola waxay ku nool yihiin weji aan xaqiiq ahayn oo markay dadka hor imanayaan ay iskaga dhigayaan inay dad wanaagsan yihiin qofka waad soo dhaweyn kartaa gurigaaga waad keeni kartaa
wuu kula noolaan karaa dad baa boqolaal sannadood isla nool oo inaad kalsooni ku wada nool laakiin kalsoonidu hadday dhimato inaad wax nolola oo meeshaa taallaa ma jirto qosolkana inaad qalbigaa laga qoslaaye ilkaha lagama qoslo aan runta kuu sheegay gabadhan iyo ninkana hadday doonayaan inaad banaankaas iska heli lahay laakiin waxa soo socda nobody know qof og ma jirto waayo ilaahayba ugu talagalay in ubadkani ka dhex beermo labadan caruur ay isu dhalaan wax kale isu dhali karaan allahu aclam laakiin ma dhihi karno waa la kala celin karaa gabadhu ayadoo halkaa joogta ninkuna halkaa joogo ayaynaad isku iman karaa sababta isugu imanayaana ubad ilaahayba isugu daray ceeshkooda that's why aan cidna u kala celin karin hadday khadra tahay hadday mid cirka kasoo dhacdatay hadday mid kale tahay wax kala celin karaa inaad horta ma jirto laba qof oo isdoonaya cidna kala celin mayso ilaahayna isugu talagalay haddii aan ilaahay isugu talagelin inaad ubadba dhexdooda kama beermeenba way kala danaysan lahaayeen ismabay arkeenba iskumabay yimaadeenba contact iyo xiriirkan ay gabadhani haba ka soo shaqayso sabab baa meesha taalay ma fahantay inaad taasi isugu yimaadeen taasaana inaad isku guursadeen calafkuna inaad waa shay cajiiba laba qof oo is aqoonin buu isku daraa laba qof oo is yaqaano isqabayna wuu kala kaxeeyaa oo mid buu daaqad buu ka tuuraa marka inaadeer uma masayn karayno gabadh baa lasoo kaxaystayoo guriga kuugu noolaydo aan ninkaaga kaa qaaday dee ilmo yar oo la kaxaysanayo maaha waa qof weyn no baby dee inaadeer qofki hadduu qof walba iska raacayo dee haddaba hala iska kaxaysto muxuu taraayay laakiin qofku raggu waa caruur inaadeer caruur maaha no waa kaa diiday taas wax caruur la yidhahda inaadeer ma jirto wax caruur eeg caruur hadduu yahay inaadeer guriga hooyadii soco mud baan yara gelaya 2 mir macnaheedu haddaad hadal ka baxdo baafisaa mud inaan khadka ka tegay biyaan soo qaaday laakiin dhegtaa kaa maqlay okay inaadeer hadduu ilmo yahay guriga hooyadii ilmo u ahaan lahaa ma fahantay waa ninkan caruur iyo mas-uuliyad baa saaran boosleeri laakiin hadday sababteeda lahayd maxaad ku diidaysaa adigu hadday iyadu ilaa waxaan waa sabab sooniga ku iri eeg sabab haba yeelataan ku xidhiirka ha keento laakiin wax ka weyn baa jiray oo ah inuu ilaahay dadkan calaf isugu daray uba iman doono calafkuna waa halkiisa waa run haddii kala celin lahayd xataa haddii aanay khadri keeni lahayn gabadhan hodan gurigeeda hodan iyo murtalismay seegeenba because of caruurtan baa meesha taala marka wax ilaahay qadartiisa ah qof celin karaa ma jirto eeg nin baa waxa la yidhi moodkii dili lahaa ayuu yidhi baa la yidhi halkan kuma dhimanayo magaalo hiblaayaha la geeyo magaaladii markii la geeyo moodkii ugu horreeyo joogo ugu tegey marka caqli marka laga shaqaysiinayo dadku waxay ku odhanayaan hebel iyo heblaayo ay soo keentoo sababta lahayd ha lahaato laakiin waxbaa ka horreeyay oo carshiga loogu qoray inay labada qof calaf isku yeelan karaan ubad wada kala dhalayaan imika adigaga siciida tusaale ahaan xaafad baad tagtay qof kama taqaanid qof allaale qofaad ka taqaanaa ma jirto gabadhaa guriga aad joogtay ayuu ilahay calafka ugu daray waad guursatay sababta ma qof baa keenay inaan horta guriga imaado maxaa sabab wax waliba haddaan laguu qorin wareedhe mikrofoonka daa iga qaadanin mikrofoonka anaa istay halow mikrofoonka iga xooginiyo laakiin dadku waxyaabaha qaar waxay sabab uga dhigaan yacni qofkan baa sidana qofkan iska ilow carshiga maalintu qofkani ilaahay abuurayay ayuu ugu talagalay ma garanaya ragga damciyo dacarna kama dhamaatay ku darso damaya horta eeg damaca inaadan macaano eeg damacan bili-aadanka wuu jiraa damaca kuma diidani oo waa la damci karaa oo qofkan inaadan qof wadadaa maraya oo noloshaadaba arag ilahay calafkaaga dhigi karo damci kartaa waad guursan kartaa laakiin ogow qofkan haddaan laguu qorin imise haddii dadka isjecel amba dadka israbaa isheli lahaayeen